بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أما هو فلم ينجه إلا الفرار أحبتي في الله waxaanu ku soo jirnay kitaabkeeni suwaru min xayaati asaxaaba ridwaanullaahi calayhim ajmaciin. waxaanu soo gaarnay dersiga 64 ee kitaabkeenna. waxaanu dhexda kaga jirnay qisadii saxaabigii la dhihi jiray cikrimatu bni abi jahl. intuusan soo islaamin baynu wadnay. amaa huwa cikrima falam yunajihi ma korinin oo ma badbaadinin ila alfiraar, carar unbaa badbaadiyo wuu cararay. wa fii yowmi alfatxi maalinkii la furtay magaalada mako ra'at qurayshun quraysh waxay aragtay allaa qibala lahaa wax awoodda inaynan u helaynin bimuxammadin sala allahu calayhi wasalama wa asxaabih, nebi muxamed iyo asxaabtiisu inay la dagaalamaan inaynan kari karin oyna awood u helaynin bay ogaadeen. allaa qibala awood lahaa iyada inuusan u sugnaanin bay ogaatay bimuxamedin wa asxaabihi inay kula dagaasho. fa asmacat waxay go-aansatay quraysh calaa an tukhalliya inay u bannayso lahu nebigu assabiila wadadiisa ay u bannayso ilaa maka uu ku geli lahaa, inaan nebiga lala dagaalin oo faraha laga qaaday ku heshiiyeen. waqad acaana waxaa u kaalmeeyey haa quraysh cala itikhaadi qaraariha, go-aankeeda inay qaadato haadaa oo kan waxaa ku caawiyey oo garab ku siiyey maa shay carafathu ay aqoonsatay quraysh oo ah min anna arasuula calayhi salaatu wasalaam nebigu naxariisii nabadgelyo dushiisa eebbaha yeele amara inuu faray quwaadahu hogaamiyeyaalkiisa allaa yuqaatiluu inaynan dagaalamin ilaa man qaatalahum qofkii la dagaalamo maahine oo min ahli makata ahlu maka ah. quraysh waxay aragtay inaynan nabiga awood u helaynin ay kaga hortagto. go-aan waxay ku gaareen marka suubanuhu in faraha laga qaado maka uu soo galo. go-aankaasna waxaa sabab ugu noqday oo ku dhiirageliyey inay qaadato quraysh naxariista nabigay aragtay oo u amray nabiga sal alla ly salam in uusan dagaal u soconin, ciidamadiisa iyo hogaamiyaalkiisana uu amar ku siiyey in cidaan la dagaalamin ay faraha ka qaadaan, ciddii ka hor timaado la dagaalanto una iska difaacaan. laakina cikrimata bna abi jahlin ninka la yidhaahdo iyo wanafaran koox oo macahu isaga la jiray kharajuu way ka baxeen calaa ijmaaci qurayshin, quraysh go-aankeedaas ay ku midowday iyagu way ka baxeen. go-aanka muxuu ahaa inaan nabiga lala dagaalamin, faraha laga qaaday iyaga isku raaceen. isagii koox la socotay go-aankaasi way qaataceen, way ka baxeen. watasadow waxay u banbaxeen oy ka hor yimaadeen liljeyshil kabiiri, ciidankii weynaa ee nabiga u watay bay ka hor yimaadeen inay la dagaalamaan. fahazamahum waxaa jebiyey khaalid bnu lwaliid, saxaabiga la yidhaahdo ayaa jebiyey fii macrakatin sagiira, dagaal yar buuna ku jebiyey. qutila fiiha laguna dilay dagaalkaasi dhexdiisa man qutila ciddii la dilay oo minhum gaaladaas laga dilay. walaada uu magan gelay bilfiraari carar man qofkii amkanahu ay u suuro gashay alfiraaru carar. ninka la yidhaahdo cikrima iyo koox yaroo mucaarad ah ayaa amarkii qureysheed khilaafay. muslimiintii bayna ka hor yimaadeen inay la dagaalamaan ay magaalada maka u diidaan. waxaa ka hortagay oo la dagaalamay khaalid bnulwaliid. khaalid bnulwaliid yaa ka hortagay oo la dagaalamay cikrima iyo ciidankiisa. oo horey shalay waxaan u soo marnay khaalid iyo cikrimo inay saaxiibo ahaayeen, ilmo adeerna way ahaayeen. khaalid bin waliid ibni hishaam iyo ninkan la yidhaahdo muxuu ahaaye cikrima ibni abi jahl ibni hishaam waa ilmo adeer bay ahaayeen. laba ninoo markaa saaxiibo ilmo adeer bay ahaayeen, iyagoo isla jiro oo dhinac ka dagaalamaan ogeen. maanta maxaa ka hor keenay khaalid? dee sanadka aynu ka hadlayno maka la qabsaday waa sanadkii 8aad. bahashu ere kaa khaldamin. khaalid bin waliidna wuxuu soo islaamay sanadkii 7aad. ninkana weli waa gaal. marka khaalid nin muslin oo ciidamada muslimiinta maka qabsanayuu ku jiray. sidaa daraaddeeda ninkan kooxda yara u watay isagaa dhagaha ku dhuftay.
meesha mabda islaamnimo iyo waxaa shaqaynayo caqiida ee qaraabaan hay reer qansaxas ku nahay ma shaqaynayso. marka Cikrimo ciidankiisa Khaalid baa dhagaha ku dhuftay, dagaal yar oo iska horimaad yar u ahayo ciidii ku dhimatay inay ku dhimatay, ciiday u suura gashay inay carartana way carartay oo gaaladii kamid ah. wa kaana fi jumlati al-faariin dadka cararay waxa jumladooda kamid aha Cikrima ibn Abi Jahl, dadka cararay buu ku jiray kabiisoo ka cararay. cinda dhalika marka agteeda ayaa usqida fi yadi Cikrima uu shalaytooday, faruhu qaniinay, wuu shalaytooday, wuu murgay mar haddii magaalada Maka laga qabsaday. famakatu Maka nabatat bihi way soo tuurtay ninka leeyahay Cikrima, way diido way soo tuurtay bacda an khadacat markay u khuduucday isu dhiibtay magaalada Maka lil muslimiina muslimiinta. meeshii saldhig u ahayd ninka Cikrima muslimiintii baa la wareegay magaaladii Maka, asagana way soo tuurtay, muslimiintina way soo dhaweysay oo magaaladii wax noo laga dhigay. والرسول صلوات الله عليه وسلامه نبي صلى الله عليه وسلم عفا واسكعفي عما سلف وحي هرمرو تجي من قريش تجاهه النبي أي معناها كظهر تمت وحال وحي دبه النبي هري وجيستي نبي وعفي قريش وحن صامرنا إنه اذهبوا فأنتم الطلقاء صعبة فالصحباتين بير صدح يصوب اسبات كفر انت هنا عافس باتينا كلا دلار ونبي يكون مركو قعنت كودغي marka wixii nabiga tijaahiisa iyo koorimaadkiisa qaabilkiisu ay Quraysh sameeyso dhibaato uu ka cafiyay. laakinahu nabigu istathna minhum wuxuu ka soo reebay nafaran koox buu nabiga soo reebay oo uusan cafinin, samaahum uu magacaabay dad yar oo uu magacaabay nabiga soo reebay. wa amara wuxuuna amray biqatlihim in la laayo kuwaasi, wa in wujidu xitaa haddii laga helo taxta astaari lkacbati kacbada daaheed iyagoo isku qarinaya xitaa haddii laga helo wuxuu amray in la dilo. Quraysh cafis baa tihiin marka laga reebo hebel iyo hebel iyo hebel, kuwaas cafis baahu xitaa kacbada daaheed haddii lagu arko waa la biraynaya. wa kaana fii daliicati haaulaa kuwaas nabigu uu yidhi hala laayo waxaa lambarkow ka ahayo hordhac u ahaa annafari ee kooxda ah Cikrima ibn Abi Jahl. dadka nabiga aragtiha lagu dilo uu yiray buu ku jiray, nin badan buu ahaa ninkani. lidaa sidaa daraaddeedu tasallala siibtay ninka la yiraahdo Cikrima mutakhafiyan xaalu yahay mid isqarinayo min Makata ayuu ka cararay. wayamama wuxuu u qasdo uu go'aansaday wajigiisa uu jeediyay shatr al-yamani dhanka Yaman ayuu aaday, xagga Yaman buu u baxsaday. id lam yakun lahu oo ma sugnaanin ninka kani malaadun meel uu ku badbaado ilaa hunaaka halkaas mahayn, meel uu ku badbaado uu ku gabado oo ma sugnaanin ilaa hunaaka halkaa Yaman maahine. wuu cararay marka. cinda dhalika markaas agteeda markuu cararay ayay madad soo baxday ummu xakiim zawju Cikrimata ibn Abi Jahl, xaaskiisana ahayd, iyo waxaa isa soo raacay wahindu bintu Cutba, hinda binti Cutba oo Abu Sufyaan xaaskiisa ahayd ayaa isa soo raacay oo waxay soo aadeen ilaa manzili rasuulillaahi salawaatullaahi wasalaamuhu calayh, guriga nabigay soo aadeen. wa macahumaa labadaas gabdhood waxaa la socday 10 niswatin 10 gabdhood ayaa la socotay, liyubaayicna inay la mubaayacoodaan oo ay la ballamaan annabiya calayhi salaatu wasalaam. labadaas gabdhood iyo 10 kale oo gabdhihii markaasi Qureysheed ah ayaa isa soo raacay nabiga inay mubaayaco la galaan bayna isu soo raaceen. fadakhalna calayhi nabigay u soo galeen, wa cindahu nabiga agtiisa xaal ay ku sugan yihiin 2 gabdhood oo min aswaajihi nabiga xaasaskiisa ka mid ah, iyo wa ibnatuhu nabiga gabadhiisa Faatima ahayd, iyo wa nisaa'un dumar oo min nisaa'i bani Cabdilmutalib reer bani Cabdilmutalib ah. gabdhahaas markay nabigu u imaadeen, nabigu waxaa la joogay xaasaskiisa 2 ka mid ah, gabadhiisa Faatima iyo gabdho kale oo reer bani Cabdilmutalib ayaa nabiga la joogay, oo gabdho badan baa nabiga la joogay. fatakallamat way hadashay hindun, hinda ayaa hadashay, walxaal hiya iyaduna mutanaqibatun ay tahay mid indha shareer qabta niqaaban. wa qaalat waxay tiri oo wejigeeday qarinaysa, yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisiyow, alxamdu lilaah eebba ayay mahad u sugnaatay, alladii eebbahaasoo adhara muujiyey
الدين دين كموجيي الذي دين كاسو اختاره إيبا أدورتي لنفسه نفس الديس وإني أنيقول لأسألك وحان كويد سنيا أن تمسني إني إيغو تاواتو رحمك قرابا لماذا إني إيغو تاواتو بخير خير أي إيغو تاواتو أيان كويد سنيا قبر قراباتهم بانهاي reer bani cabdimunaaf baan ahay nabiga ilaahayow qaraabanimada ani adi noo dhexayso inay khayr igu taabato oon la idhibaataynin baan rabaa bay tiri fa innii anigu imra'atun haween baan ahay mu'minatun allah rumaysay musadiqatun rumaysay rasuulkiisaan ahay huma kashafat way feeday can wajiha wejigeedii bay feeday wa qaalat waxay tiri hindu bintu cutba baan ahay yaa rasuulallah ilaa marka hore indhaha u xirnaa nabigu ma garanayni way isbartay هند بنت عتبة بان هاي رسولك الله فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم مرحبا بك سودوين باكو سقناتي بوي فقالت وحيتري والله بان كدارتي يا رسول الله إلهي رسولك سيو ما كان على وجه الأرض دولك دوشي سماء صنهين بيت قري أحب إلي اللوغة جعل بديهي أن يذل من أن يذل إنو دلوبو من بيتك قريقات qoos aan ka jeclahay inuu baaba oo uu halaagsamo qooskaada ma uusan jirin bay tiri inaad baabado dhulku kula go'an jeclaan jiray walaqad asbaxtu waxaan waa bariistay wamaa calaa wajhi al-ardi dhulka dushiisa isagoo uusan ku sugnayn oo uusan saarnayn baytun guri axabu ilaya looga kal jecel badan yahay ama kal gacel badan yahay ama aan ka jeclahay an yaciza min an yaciza inuu qiimoobo oo sharaf uu yeesho من بيتك قريقاد هوري قريقاد إنو دلوبان آدو جعلان جري لكن ما أنت آدو حانو جعلي قريقاد إنو قيمة يشو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوير وزيادة أيضا صوت بيرورك الصوت أما واد إسي جعلان دونتا هدي إسلام قاد كسي جرت قوادا نغاتا قانانا انت نور وحي أمر يسا وحوي اسكوكتا وقوادا النبي صلى الله عليه وسلم أذيركي سبيركي سعنتيو دنبي وين بيقشي قبادان لكن إسلامكو عفى الله عما سلفوه وحي هروا العفين يا قفك الضبكته وكانوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين دنبي قشي بي أكتهي إيضا النبي كخجلي سوك حشوني سوجي كدوالتي عفس بي ويدستي مركي النبي يري مرحبا بك وجهك انت فرتي أي فرحضي أي تري sirtii ay qarinaysay bay sheegto adduunka adaan kugu nacbanaan jiray haddana adduunka adaan kugu jecel bay tiri thumma qaamat waxaa joogsatay ummu xakiim ayaa istaagtay ummu xakiimin minkaas oo loo sigay zawju cikrimata min abi jahlin cikrima xaaskiisin ahayd ayaa iyadan istaagtay markay gabadhii hore dhammaysatay tanna way istaagtay fa aslamat way islaamtay oo tawxiidkii bay ku dhawaaqday وقالت وحيتري يا رسول الله رسولك الله قد هرب عرري منك هذا حق هذا عكرمة يا عرري وانك هذا إلى اليمن بو عرري خوفا حال كابق يوم من أن تقتله إن الدشاء ذيك فأمنهم مجنجليسي أمنك الله كم مجنجليسي فقال عليه الصلاة والسلام هو آمن وآمن أو مجنجليسي وان عفيي ننكاسي haddaba doonuy waxay tiri rasuulka ilaahay ninkeeda adoo ka cararay waana dambiilo inaad disho ka cabsanaya ii magan gali ninkeeday u dagaalamaysa islaamka iyo khayrka wanaagay la jeceshahay hadallada isticmaalaysa u fiirso fa amminhu magan galiyasi ammanaka allah ku magan galiyasi allah ku badbaadiye faqala alayhi salatu wassalaam huwa aaminun nabigu inuu dadka laayo aargoosta ma ahayn gabadhii hore waa soo marnay waa cafiyey ninkana waa ninkii dhibku badnaa haddana waad arkaysaa waa cafiyey suubanahu sala allahu caleyhi wasalam fa kharajat min saacatiha isla markiiba way baxday saacaddiiba way dhaqaaqday gabadhi fii talabihi cikrima inay raadisayna u baxday wa macahaa gabadhani waxaa la socday ghulaamun laha wiil iyada ay leedo addoon ah ruumiyun oo reer ruum ah ruumi loo nisbeeyey gabadhii markiiba buraashaday biyo ku shubatay safarkii bay isu diyaarisay addoon ay lahayd ayay wadatay falamaa awghila fi dariiqi raawadaha algulaamu can nafsih qisadani
halkaasaynu kasii wadi doonaa insha allahu tacaala. halkan haynoo joogto. hada wabilahi towfiiq, wasali allahuma calaa nabiyina muxamed bni cabdillaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim. wassalaamu calaykum waraxmat ullah.